لو علمي أو برد يعرف ما دين مع إلهي واسير أحمد سيئ يكون أهل سنة الحمد لله روك وحوالبالوها ولو حوجسو قرح سنها هذا بيجي ورا المقالة أتكتم من حلقها بو حلالها طرشين كسوس عضا بوتلان كدعيتونا سنتك waxaa faragelin bareero cad ah oo aan geed loogu soo gaban karin ku haya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda shisheeye oo ay ka mid yihiin dawladda Mareykanka, dawladda Qatar, dawladda Imaaraadka, qolyahan lagu magacaabo UN-ta iyo dawlado kale badan oo aan wali soo shaabixin. bisinka iyo hasanka oo walaalo awal bulshadu waxay qaadi billahi ka tagnaayeen lixdan xubnood oo lagu eedeyn jiray in codka bulshada lacag ku gadan jireen والعلمي هاتن حالك وحو مريا كنت كقول وقنج أقول وعدوا أيان درب ورنا دولتي دحاء وأي أمة رجالك قبت أياك فصوه صلاوتي ما من قبل ذي دل كجري والمتجر توحلي لها دولة فالدرالك وعمال أي اسكن معمونا نمان جد يتشهلا ويالا ورانا دولة تيك هوريس أي ضدك قيمي إلا مدن أيها كدرن وبطلان محاك صوغلي madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamulka goboleedyada ayaamaha waxa ka dhaxeeya khilaaf aad u xoogan oo ku saleysan xaalad siyaasadeed marka waan filayay inay dawladda federaalka Soomaaliya soo faragelin doonto doorashooyinka ka dhici doona Puntland oo wuxuu yahay khilaafka iyo isfahan darrada ka dhaxaysa dawladda federaalka iyo madaxda maamulka goboleedyada hore loo yiri labadii xaaraanta ku heshiisay xalaasha ku diriraan walaalow waxa la lahaa hunguriga isku hayaan oo mid walba jeebkiisu u diriraya wuxuu isleeyahay ayaan laga badsan wallahi ummadda Soomaaliyeed cidna uma maqna cidna uma qodna musharax walba intuu daacad isaga ka dhigo markii la doortana waxaas iyo maatada ayuu ku duntaa oo jeebkiisa la ciyaarayo noqda balse waxa la yaabanay dawladda Mareykanka waxaa loo keenay oo inay fargelinayaan waxa la lahaa musharaxiin badan oo sita dhalashada Mareykanka in ay u sharaxan yihiin xilka madaxweynenimo iyo tan baarlamaanka waxaana maalgelinaya oo xagga fanka u qaabilsan dawladda Mareykanka oo dawladda Mareykanka maxay ka faa'iideysaa dawladda Mareykanka waxay rabtaa inaysan gacantooda ka bixin awoodda maamulka Puntland oo madaxweynaha Puntland ee hadda talada haya hadduu xilka ka degto sidii ay ku heli lahaayeen madaxweyne kale oo muwaadin Mareykan ah wallahi wayaab oo maxaa loo lahaa لحدك أي صومالي كحرود قميصي ولا اللوارون ولحدك أي إنه حرية قادم بس هو حلوي أي يحتب إلى نسيب مركهاتا قميص دبن بين كتشرنا إلهي هالنوات بحيه وهذا من اللغة عباد كشي كينيسا ورا دولة قدرنا حاجة بينا قصوك الشيء هو وميا وربهين سو دولة قدر دولة إماراتكو كما دحية خلاف سياسات oo khilaafkooda maxaa laga galay walaba dawladood waxa isku haystaan dalka Soomaaliya si waxna lahaayeen oo waxa la lahaa qolo walba waxa wadataa musharaxiin dawlad iyaga oo ah kuwaas oo u sharaxay xilka madaxweyne iyo xilka baarlamaanka marka dawladda Qatar lacag aad u badan bay ku bixinaysaa doorashooyinka soo socda si loo doorto musharaxiinta dawladda Qatar ay wadato a'uudu billahi wala lugu ummadda sidaan u tafawday ummaddu waxa horboodiyo dawlad aan diir raxayn intii wax kala garanaysiin waa iska aamuseen marka intii wax magaratada ahaydna siyaasi wadan shisheeye dawlad oo ah bay magac qabiil ku daba joogaan way hadii la garanayay nimankaas dawladda ah ma dhabi wadanka looga saaro allo sahal amuura hadda wuu iskaareynaya loo gudbiyaa